dal Muslim ah oo ku yaal qaaradda Koonfur Ameerika. Islaamku waddankan waxa uu soo gaaray qarniyo ka hor. Hadda waxa uu ku hadlaa luqadda afka Dutch-ka ama luqadda dalka Holland oo uu deris la yahay. Muslimiintuna waxa lagu tiriyaa 3 meel, balse hadda waa uu ka tiro badanayaa oo diinta Islaamka ayaa ah diinta koowaad ee waddankan. Laakiin muslimiinta halkan waxa u sugan sheeko la yaab leh kadib markii qaar ka mid ah muslimiinta halkan ay ku tukadaan jiha ka soo horjeeda jihada qiblada. Haddaba waa kee waddanka Suriname, waddanka ugu yar ee Muslim ah wadamada Islaamka. waddan madax bannaan oo ku yaal qaaradda Koonfur Ameerika. Waxa uu xuduud bari kala leeyahay French Guiana, dhanka galbeedna waxaa ka xiga Ghana, xagga koonfurna waxaa ka xiga Brazil, waqooyina waxaa uga aadan badweynta Atlantic. Waa dalka ugu yar ee madax bannaan ee ku yaal qaaradda Koonfur Ameerika. Dadkiisu waxaa lagu qiyaasaa in ka badan nus milyan, halka masaaxadiisuna lagu qiyaaso 150,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah, taa oo la micno ah inuu u dhigmo baaxadda gobolka Tunis. Dalkan waagii hore waxaa lagu magacaabi jiray New Amsterdam ama Amsterdamta cusub. Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa ahaa kuwii ugu horeeyay ee soo gumaystay. Ingiriiska iyo Faransiiskuna waxay isku dayeen in badan inay ka dhigaan dhul gumaysi, laakiin Dutch-ka ama Holland sidaad u taqaanaba waxay ku guuleysteen inay ilaashadaan, iyaga oo ku dooday in ay tahay meesha kaliya ay ka haystaan qaaradda Koonfur Ameerika, halkaas oo ay Suriname weli ay ku hadasho luqadda dalka Dutch-ka ama luqadda dalka Holland. Waana waddanka kaliya ee qaaradda Ameerika ku yaal ee ku hadla luqaddaas. Sida ay tahayna, Yurubiyaanka ku nool Suriname waxa lagu qiyaasaa 2%. Dadka ugu badan ee ku nool halkan waa dad asalkoodu uu yahay Hindi, Pakistan. Sidoo kale waxaa soo raaca qolo la yiraahdo Korean, waana dad iska kala dhaleen hooyo madow ah iyo aabba cadaan ah. Sababta keentana in ay waddankan ku yaraadaan dadka cadaanka ayaa ah in Holland waagii hore uu dhulkan u ahaa dhul beereed. Shaqada dadka ka shaqayn jirana waxay ahaayeen dadka kala yimid qaaradweynta Afrika, sidoo kale Indonesian iyo Hindi. Sanadkii 1975, dadka Suriname waxay awood buuxda u yeesheen inay xornimada ka qaataan dalka Netherland ama Holland, waxayna yeesheen waddan madax bannaan oo dimuqraadi ah ilaa ay timid markii dambe dowladdii militariga, taa u beddeshay waddanka waxa loo yaqaan hanti wadaag 80-maadkii, ka uu hogaaminayay nin loogu magacaabay Peter. Sidaa darteedna mas'uuliyiintii Holland waxay bilaabeen inay ka joojiyaan gargaarkii ay soo gaarsiin jireen dalkan hadda madax bannaanida ka qaatay, taa oo Suriname u horseetay dhibaato dhaqaale. Dadkii degganaana ay qasab ku noqotay inay ka guuraan. In ka badan 3,000 oo dadkii Suriname asalka ahaa ayaa lagu sheegaa ilaa hadda inay ku nool yihiin dalka Holland. Caasimadda dalkan waxaa lagu magacaabaa Paramaribo, oo laga yaabaa inaadan hore u maqal. Waana magaalada ugu weyn dalkan. Dadka ku nool caasimadda waxaa lagu qiyaasaa 250,000 oo ruux. Ganacsiga ugu weyn ee magaaladan waa dahabka iyo qasabka sokorta laga sameeyo. Sidoo kale waxaa soo raaca bariiska. Lacagta dalkan waa Suriname dollar. Dadka Suriname waxa ugu weyn ay ka shaqeeyaan waa ugaarsiga malayga. Diinta ugu weyn halkan waa Masiixi, balse way sii cirib tirmaysaa oo muslimiinta dalkan ayaa aad u badanaya. Daraasad la sameeyay waxaa la sheegay in dadka muslimiinta Suriname ay aad u kordheen ilaa 35%. waxaana jiro qodobo ka qayb qaatay sare u kaca muslimiinta dalkan oo lagu xusay daraasadda. Waxaa ka mid ah tirada dhalashada carruurta oo sii kordhay, dadka Afrikaanka halkan ku nool oo qaadanaya diinta Islaamka. 1996, Suriname waxay ka mid noqotay xubin ka mid ah ururada iskaashiga Islaamka. Laakiin muslimiinta tirada badan ee Suriname iyo taariikhdooda dheerba, Islaamka halkan waxa uu leeyahay sheeko ka duwan wadamada kale, iyaga oo u kala qaybsamay firqooyin ama kooxo badan, kuwa oo badankoodna islagdaya maadaama ay ku dhaqmayaan caadooyin iyo dhaqamo la yaab leh. Waxa uu badan ee la sheegay ee sababtu ayaana ah masaafada juqraafi ahaan ee dalkan iyo meesha uu ku yaalo oo ah wadamo reer galbeed ah, kuwa oo inta badan sheegtay diinta Masiixiyadda, taa oo ka dhigtay inay ka fogaadaan muslimiinta inteeda kale. Sidoo kale culimada oo ku yar. Sidoo kale faqriga ka jira halkan waa mid aad u baahsan, iyadoo lagu qiyaasay in dadka Suriname maalinkii ay quutaan wax ka yar $3. Sidaa darteed haddana waxaa la sheegay in dalkan ay soo hogaamiyeen in ka badan 6,000 oo hogaamiye oo muslimiin ah, kuwa oo isku dayay inay mideeyaan muslimiinta dalkan. Inkastoo muslimiinta Suriname lagu tiriyo kuwa ugu waxtarka yar, haddana waxay ku dhow yihiin inay noqdaan diinta ugu weyn halkan.
laakiin dhowaan ururo iyo hay-ada islaama ayaa gaaray waxayna bilaabeen inay mideeyaan muslimiinta halkan. laakiin waxaa jirto arrin cajiib ah, qaar ka mid a muslimiinta halkan sida Indoneesiyaanka waxa ay u tukadaan jihada galbeed, halka Surinamna qibladu ay ugu aadan tahay jihada dhanka bari, iyaga oo tixgelinaya in Kacbada ay ka jirto jihada galbeed maadaama markii horeba ay ka soo haajireen dalka Indoneesiya, taasi oo sababtay inaysan weli helin dadka saxa oo u sharaxa arrinta. haddaba daawada waxaynu soo gaarnay gunaanadka mawduucayna. haddii aad ka heshay inaan wax ka soo diyaariyo mawduucyadan oo kale ama wadamadan, inoogu reeb fariintaada qaybta kommentiga. mahadsanid.